السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحبتي قاليقة كسر وهذا مركز علمي تيك يوتيوب channel كذا كحسبتها سبسكرايب له هدي أنا لجوت الناس يجوك فيديو كان لايك لشيرنا ده كومنت تقولنا وعرفتي دينا اسكو نقدر ونكسن صحبتي قاليقة فيديو كنا ما أنت وح كسبسين هاي هو آيفون هذا بس صاحبي فيديو هراء أي تري ما هراء أنسوق لي يوتيوب كاسو هاي qaabka markii mobilkaada iPhone-ka oo ishaan gareeyo ama istaago ama isjam gareeyo aad uga saaran lahayd hadaba saaxiibayaal fiidiyogana maanta waxaan idin kula wadaagayaa waxyaabaha sababa in iPhone-ka oo isjam gareeyo ama oo iska istaago daawo fiidiyogan ilaa dhamaadka haddii aad wadatid mobile iPhone hadaba saaxiibayaal waxaan idin wadaagayaa 5 waxyaabood oo sababa in mobilkaada markaas isjam gareeyo 5taas qodob iyo xalkooda qodobka koobaad waa in mobilkaada storage-kiisa oo buuxo laba storage ayaa jirta mid iCloud-ka iyo mid mobilkaada midkiisa hadaba midka mobilka isjam gareynaya hadii uu buuxsamo waxa weeyaan waa midka mobilkaada example mobilkaada waa 128 ama waa 64GB marka hadii mobilkaada uu ahayo 128GB oo 128GB ga ay buuxsantay oo san lahayn wax space ah halkaas cilad ayaa ka imaanaysa oo mobilka si caadi ah oo loogu talagalay ma u shaqeynayo taas ayaana sababaysa in mobilkaada oo ishaan gareeyo ama oo isjam gareeyo marka waxa ay noqonaysaa oo ciladaas uga bixi kartaa in aad iska dileedid ama iska tureysid fiidiyoyaasha iyo sawiraanta aadan markaas u baahnayn ee ku jira mobilkaada iyo sidoo kale applicationada qaar ee markaas aadan isticmaalin si aad storage-kaada uga dhigatid mid space leh haddii uu mobilkaada si hore kugu sheego uu yahay 128 oo buuxsamo dhibaato ay meesha ka imaanay marka ugu yaraan waxa u baahan tahay in aad haysatid 1GB oo free ah qodobka labaadna waa in mobilkaada uu baahan yahay software update hadaba soo fiiri mobilkaada in uu yahay update-ki ugu dambeeyay in uu yahay hadaba maantadan aan joogno iPhone-ka iOS-ka ugu dambeeyay waxa weeyaan 16.3.1 marka waxa u baahan tahay in mobilkaada oo mar walba update ahaado si aad u soo fiirisidna waa kana instruction-ka halkan ayaa tagaysaa ka bacdina waxaad fiirinaysaa in mobilkaada oo update yahay iyo in kale mar walbana update-ka waxa uu sababaa in mobilkaada oo la qabsan waayo macnaha software-kii hore oo u baahan yahay in la update gareeyo si markaas oo la jaan qaado adduunka cusub qodobka saddexaad waa in uu jiro application ama software oo aan fiicnayn oo qashin ah oo markaas aad soo gashato mobilkaada adigoo malinaysid inuu fiican yahay hadaba iska fiiri mobilkaada software-da ugu dambeeyay mid ka mid ah ayaa ah mid xun oo markii ciladu kugu bilaabatay ciladan sababay qodobka afraad waa batteriga hadii mobilkaada aadan chargerin si caadi aadan u chargerin markaan kulay si caadi aadan u chargerin hadii markii uu 10 ka hoos maro ama uu damaba aad charger gareysid halkaas cilad ayaa ka imaanaysa oo mar qaar waxa ay sababaysaa in mobilkaada shaashadiisa iska madoobaato oo cabaar iska aamusnaado mar dambe oo soo kaco hadaba sida Apple ay sheegeen oo website-kooda ku sheegeen waxaa loo baahan yahay mobilka iPhone-ka in aad charger gareysid inta uusan 10 gaarin adishan iyo waxaas iska dhaaf oo inta uusan 10 gaarin ayaa ugu fiican in la charge gareeyo marka mar walba waxaad ku dadaashaa mobilkaada inta uu 20 iyo 10 inta u dhaxaysa uu ku jiro meelahaas waa in aad charger gareysatid marka qaar haddii mobilkaada oo chargerkiisu oo 10 gaaro markii uu 10 gaaraba waxa uu ku tusayaa in ay shaashadu madoobaatay shaashadu madoobaanaysa ka bacdi wuu soo kacaya markaas ka bacdi ay waxa uu ku leeyahay mobilka chargerkiisu 10 ayuu ka hooseeyaa marka mar walba oo mobilkaada oo 10 ka hooseeya ama damayba aad charger gareysidna waa mar walba oo cilad ay u sii horseedi karto qodobka ugu dambeeya waa qodobka shanaad qodobkan waa screen-ka mobilka midkan haddii intii qodob ee aan kuu sheegay aad ku samaysay oo mobilkaada wali soo taagan yahay oo mar walba isjam gareynayo hadaba ciladu ma ahan software ma ahan ee waa hardware oo mobilkaada ayaa screen-ka saaran yahay mid fake ah oo marka horeba mobilka ayaa waxa ku soo gadatay cilis ahaan ama qof ayaa ku siiyay hadii aysan labaas midna ahayn oo adiga aad caadi u soo gadato bacda ka jartana waxay noqonaysaa in mobilkan oo ka dhacay oo screen-kiisa ay markaas jug gaartay
mar walba oo screenka ay jug soo gaartana waxyaabaha aan soo sheegay dhan haddii aad ku samaysid weli waa uu soo taagnaanaya ilaa aad ka bedeshid screenka. haddaba waxaan kugula talinayaa haddii uu yahay mobilkan screen aad adiga aad soo saartay haddii uu yahay screenka lagu soo saaray waa mid fake ah iska bedel. waan filayaa saaxiibayaal inaad fiidiyogan wax uun ka faa'iideen. haddii aad wax ka faa'iideen la sii wadaag saaxiibadaada si ay iyagana wax uga faa'iidaan. intaan fiidiyogan wax ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.